waxaa si xawli ah u soo badanaya maalinta ka dambaysa dadka ku biiraya liiska milyaneerada iyo billionaireska adduunka si ka dhaqso badan sidii loogu soo biiri jiray qarnigii kan ka horeeyay. Da'da iyo khibradu xataa muhiim aad uma ahan, sidoo kalena wax saameyn ah oo sii weyn kuma lahan halka aad joogto. Haddii aad heli karto internet, waxaad noqon kartaa milyaneer. guulaha istaba jooga ah ee ay dadka dhalinyarada ah ka gaarayaan ganacsiga internetku waa arrin u baahan in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaalida ah ee la daalaa-dhacaya shaqo la'aanta iyo xasilooni darrada dhaqaaleentaba. wax ka yar oo aad si miyir leh ugu maalgashatay dunida cryptocurrency-ga ayaa nasiibkaaga dhaqaale u bedeli kara dhanka wanaagsan. waxaa sidoo kale xusid mudan in khatar aad u weyn ay leeyihiin suuqyada maaliyadda guud ahaan, taasoo gebi ahaan waxa aad ka rajaynayso beddelkeeda iyo wax ka xunba aad kala kulmi karto. mar walbana waa in qofku maskaxda ku hayo qaacidada dhaqaale ee ah khatarta iyo faa'iidadu inay yihiin mataano. haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa sidii aad u xulan lahayd coinska aad maalgashan lahayd sanadkan bilowga ah kuna qarxi lahaa sanadka dhammaadkiisa. waa iska kaftamaya laga yaabo in iskugu qarxin. waxyaabo badan ayay tahay qofku inuu u fiirsado kana digtoonaado oo uu aad u qiimeeyo marka uu rabo inuu xusho coinkii uu maalgashan lahaa. laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa afarta ugu muhiimsan oo ay tahay qofku inuu fiiriyo marka uu doonayo inuu maalgashado suuqa cryptocurrency-ga. qodobka koowaad waa market cap-ka ama market capitalization. kala sarreynta ay kriptooyinku ku kala sarreeyaan market cap-ka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xusho marka investment la sameynayo. market cap-ku waa qiimaha guud cryptocurrency gaara oo la maangareeyay, waxaana xisaab ahaan lagu soo saaraa isku dhufashada inta coin ee circulationka ku jirta ee ka mid ah cryptocurrency-gaas aad xulanaysid oo lagu dhuftay qiimaha uu marayo halka xabo. qodobka labaad ee ay tahay inuu qofku ka fiiriyo cryptocurrency-ga uu maalgashanayo waa inta xabo coins ah oo suuqa ku jirta iyo inta u dhiman cryptocurrency-gaas oo suuqa soo gali doonta. waa in cryptocurrency-ga aad qaadanaysid uu leeyahay limited supply. sidoo kalena waa inaad tixgelisaa ama aad la socotaa inta coin ee haddeer suuqa kaga jirta cryptocurrency-gaas. tusaale ahaan, haddii aan soo qaadana bitcoin, limited supply-geeda ama coinskeeda oo dhan waxa ay ku xadidan yihiin waa 21 milyan oo xabo. agosto 2021 18.7 milyan oo ka mid ah 21 milyan ee bitcoin ayaa la maangareeyay. waxaa kaliya u harsan 2.3 milyan oo coins ah in la maangareeyo. halkaasna waxaan ka arkaynaa in uu jiro supply aad u xadidan oo ay leedahay bitcoin. taasna waxay keenaysaa in bitcoin qiimaheeda uu mar walba kor u kici doono mar walba oo ay dadku iibsadaan, in baahida loo qabo coinka ama dadka u baahan inay iibsadaan ay siyaado, sidoo kalena uu yaraado supply-giisa ama inta u dhiman ee lasoo maangareyn rabaahi waxay kor u qaadaa qiimaha cryptocurrency-ga. sidaa darteed, marka aad rabto inaad xulato cryptocurrency gaar ah waa inaad ogaataa guud ahaan imise xabo ayuu ka kooban yahay coinska cryptocurrency-gaasi, sidoo kalena inteebaa haddeertan circulationka ku jirta ama suuqa taalla. qodobka saddexaad waa inuu qofku akhriyo waxa loo yaqaan white paper-ka. white paper-kuna waa halka ay ku dhan tahay xogta cryptocurrency-gaas guud ahaan. waxyaabaha aad ka ogaanayso akhrinta white paper-ka waxaa ka mid ah inaad ogaatid sababta loo sameeyey, problemyada ay xalinayso cryptocurrency-gaas, tiknoolajiyadda ay isticmaalayso iyo waxyaabaha la midka ah. white paper-ka sidoo kale waxaa ku cad aragtida dadka abuuray coinkan iyo heerka ay gaarsiisan tahay khibradooda iyo sidoo kale mustaqbalka ay rabaan in ay gaarsiiyaan cryptocurrency-ga ay abuureen. haddii xogta ku qoran white paper-ka ay kuula muuqato wax macquulgal ah una muuqdo wax la qaban karo, waa in aad maalgashigaaga ku darsataa coinkaas, weliba adigoo isticmaalaya qayb xadidan oo ka mid ah dakhligaaga. ugu dambeynna waxaad ogaan kartaa haddii ballanqaadyadii ku qornaa white paper-ka laga hirgeliyay adduunka. haddii ay haa tahay oo la hirgeliyey, waxay keeni doontaa taasi in qiimaha coinkaasi uu kor u kac sameeyo, waana markii aad ogaan lahayd in aad faa'iido samaynayso. qodobka afraad oo ugu muhiimsan waxyaabaha loo eego cryptocurrency-ga marka aad xulanayso waxaa ka mid ah waxyaabaha loo isticmaali doono iyo cidda ka dambeysa shaqada ay qabanayaan. waa waxa keeni doona in coinskaasi ay noqdaan kuwo dadka oo dhan aqbalaan, investorskuna ay maal gashadaan. sidoo kale waxaa isbedeli kara shaqooyinka, waxaana lagu soo dari karaa kuwo cusub oo aan markii hore white paper-ka ku qornayn. mar walba oo uu bato isticmaalka ama waxyaabaha loo isticmaali doono waa mar walba oo ay badanayso dadka aqbalaya, taasna waxay kor u qaadi doontaa qiimihiisa. tusaale ahaan, haddaan usoo qaadano Ethereum, waxay leedahay mid ka mid ah use caseska ama isticmaalka ugu badan. taasna waxay ka dhigtay cryptocurrency-ga haysata market cap-ka ugu weyn marka laga soo tago bitcoin, waxayna ka mid tahay cryptocurrency-yada la og yahay ee ugu mustaqbalka fiican. haddii kiisaska isticmaal ama waxyaabaha loo isticmaalayo cryptocurrency-gaas ee hoos dhac ku yimaado, waxaa sidoo kale dhacaysa in uu hoos dhac ku yimaado qiimihiisa. haddii sidoo kale uu kor u kaco waxyaabaha loo isticmaalana ay soo bataan, waxaa kor u kici doona qiimaha coinkaas. afartaas qodob waxaan rajaynayaa inay yihiin afarta ugu habboon ee ay tahay qofku inuu ogaado inta uusan maalgashan cryptocurrency gaar ah. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax ka faa'iiday. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aan isku aragno social media-ha, iga soo raac dhammaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter.